كور قبتين جديد إحدى حادينته سيد الحسبي يم مدحوينها قوامين صوص على اللي هي طبعا في بشي لبي طبنات قوان كان سلا كور قبتين سد إحدى حسبي بوا يقبله لبدا حسبي وهاي يقبلين لقشي مدحوينه فدي وحنا يسوي مادين كلنكي كواد كلنكا كواد مدحوينها يلا بده قدوميه ay isla qaateen waxa madaxweynuhu codsaday in la siiyo 48 saacadood waxaan ka wada hadalay sidii loo fulin lahaa saddexdii qodob ay soo saareen guddiga dhexdhexaadintu ee ahaa kala dirista komishanka hadda jooga soo celinta komishankii hore iyo muddaynta xilliga doorashada oo ka dambeyn 2020 maalinta koowaad waxaan ku kala tagnay sidii madaxweynuhu uu ku kala diri lahaa komishankii hore waxaan u soo jeedinay inuu u raaco kala dirista komishanka dariiqii loo maray 2009 ee ahaa laga codsaday madaxweynaha inuu ka codsado komishanka inay iscasilaan 48 saacadood kadib waanu soo nimay madaxweynuhu wuxuu ku cudur daartay in hawlo jiray oo wada carwooyin ka mid ahaayeen yeergooyin dalka yimid waqtigu ku yaraaday waxaanu codsaday madaxweynuhu 14 maalmood oo kale si hawsha kala dirista loo soo dhameeyo hawlaha kale ee qodobada kalena loo guda galo markaas maanta waxaan isugu nimid kulankii saddexaad oo bishu tahay 13 January madaxtooyada waxa shaqada ka soo qayb galay madaxweynaha iyo ku-xigeenka labada gudoomiye iyo xubno ka socda saddexda xisbi qaran oo dheeraada maanta madaxweynuhu waxaan ka filaynay the progress report iyo wixii uu qabsoomay waxaana gunaanadkiisu noqday madaxweynuhu inaanu fulin karaynin kala diristii guddiga doorashooyinka ee hadda jooga arrintaas oo ka gacan taagtay inuu fuliyo taasoo macnaheedu waxa yahay inaanay fulinaynin go'aamadii guddiga dhexdhexaadinta labada xisbi waxay ugu baaqayaan komishanka hadda jooga si dalka ay uga qabsoonto doorashooyin waqtiga u degdeg badan ee suurtagalka ah iyagoo u turaya dalkooda inay iscasilaan baan ugu baaqaynaa xisbiyada mucaaradka waxay kaloo caddaynayaan inay una soo jeedinayaan guddigii dhexdhexaadinta beesha caalamka shacbiga Somaliland inay doorka ay ku leeyihiin ay ka qaataan hawshan waxa kale oo ugu dambeyn labada xisbi isla qaateen inay isugu yimaad doonaan shirar joogto ah oo ay kaga tashanayaan tallaabooyinka ay sida wada jirka u qaadi doonaan haddii la yiraahdo